sharciga ku saabsan xeerashada 2013 madaxweynaha waqooyiga Korea Kim Jong Il wuxuu dejiyay sharci xeerashada timaha ah oo 28 qaab ah 10 rag ah iyo 18 haweenka ah laakiin cadaalad darrada sharcigan ka jirta waxay tahay in Kim Jong Il aan u hoggaansamin sharcigaas oo sida uu timaha u xiran yahay ay ka duwan tahay haddii aad ku nooshahay magaalo ka mid ah dhulka Soomaalida oo aad rabto inaad caasimadda u guurto kaliya waxaad u baahan tahay inaad meeshii aad ka degi lahayd aad ka hesho ama aad kiraysato laakiin way adagtahay in dalka waqooyiga Korea inaad u guurto caasimadda Pyongyang waa inaad marka hore ogolaansho ka haysataa dawladda maxaa yeelay caasimadda waxaa loo ogol yahay dadka lacagta leh iyo kuwa magaca leh haddii aanad intaa midna lahayn laguma ogola inaad ku noolaato caasimadda qof walba waa inuu codeeyo sharciga waqooyiga Korea waxa uu dhigayaa in qof walba codeeyo oo ku qasab ah haddii aad ku nooshahay waqooyiga Korea inta television shidato ma daawan kartid xitaa gameka Thrones Walking Dead iyo wax kasta oo dooqaaga ah waqooyiga Korea waxa aad ka helaysaa 3 jalan oo mid kasta dawladdu ay maamusho kani waa sharciga ugu waalan ee waqooyiga Korea haddii aad ku jirto jeel oo aad ka baxsato qoyskaaga oo dhan ka soo bilow ayeyda waalidka carruurtaada kulli waa laga jarayaa dambigaada aad u gashay oo la cadaabaya haddii aad qorsheynayso inaad booqato waqooyiga Korea ha filan inaad booqato meel kasta ilaalo la'aan xitaa kama bixi kartid hoteelkaaga adigoo bilaa ilaala ah waqooyiga Korea kama heli doontid xuquuq iyo xorriyad sida dadka u dhashay oo kale ayaad ahaanaysaa dadka loo ogol yahay inay baabuurta yeeshaan waa saraakiisha dawladda iyo dadka magaca leh boqolkii qof ee Korean ah hal ayaa baabuur loo ogol yahay ama ka wata ha isku dayn inaad ka baxsato waddanka haddii aad ku nooshahay dalka waqooyiga Korea waxaad ku khasbantahay inaad ku noolaato inta noloshaada ka hadhay haddii aad isku daydo inaad waddanka ka baxdo waa lagu ciqaabayaa weliba si xun wicitaanka dalka baxsan waqooyiga Korea waxay ku sababi kartaa in lagu dilo 2007 waxay dawladdu toogteen oo ay dileen nin ku hadlayay kool dibadda ah isagoo oo jooga stadium markii la dilay dadkii garoonka jooga waa ay argagaxeen waana isjiireen waxaana ku dhintay 6 qof